kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada inagala xiriirta waa habeenimo sabtiha 16 bisha February sanadka 2019 qodobada barnaamijka caawiya caalamka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah dawladda Kenya oo ku dhawaaqday go'aan ay safiirada ku kala qaadanayaan Soomaaliya waxaynu eegi doonaa maxaa sabab u ah xilligan go'aankaasi iyo waliba arrinta la isku hayo ee ku aadan xuduudda laga baarayo shidaalka ee Soomaaliya Kenya maxay xilligan ugu soo beegaysaa waayahay waxaynu ku bilaabaynaa war cusub oo gordhawta soo dhacay dawladda waddankaasi Kenya ayaa shaaca ka qaaday in ay u yeeranayso safiirkeedii joogay Soomaaliya Lucas Tumbo waxaana markaasi ay amartay inuu si degdeg ah uga baxo magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi safiirka Soomaaliya kaasi oo Soomaaliya wakiil u ah waxaana talaabadaasi ay Kenya ku sheegtay in ay markaasi ka dambeysay Soomaaliya oo sida hadalka ay u dhigtay magaalada London ku xaraashtay ceelal shidaal oo ku yaala xuduudda lagu murusan yahay arintaasi warbaahinta waddankaasi Kenya ayaa si weyn wax uga qoraysay saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada iyo Twitter-kana si aad ah ayay uga socotaa dood arrintan ku aadan Axmed Cabdinuur ayaa studio-ha la fadhiya oo soo akhriyay warbaahinta Kenya wixii arrintani ay ka qortay sida uu sheegay xogayaha joogtada ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Macharia Kamau Soomaaliya waxa uu yiri waxay si taxadar la'aan isaga indhatirtay qaraar caalami ah oo ku saabsan xuduudaha lagu muransan yahay iyo sidoo kale khilaafaadka xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si laga xumaado muujisay in aanay weli gaarin isla markaana qaadan qaangaarnimada siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed heerka caalamku aqoonsan yahay isla markaana aanay u habaysnayn ama si wanaagsan oo dawladnimo aanay u shaqaynayn waxa uu ka hadlayay shir jaraa'id oo maanta uu qabtay ambassador Kamau waxa uu sheegay in tallaabada Soomaaliya ay qaaday shidaalka iyo gaaska ay ku iibisay magaalada London ay tahay wax masiibo ah oo laga xumaado xaraashkaasina waxa uu dhacay bishan February 7 sanadkan 2019 Danjire Kamau waxa uu ku naqdiyay dawladda Soomaaliya in ay damaanad qaad u qaadatay taageerada ay Kenya siiso xagga siyaasadda iyo dhibaatooyinka xagga bani'aadanimada Soomaaliya ka haysta waxa uu yiri Kenya waxay Soomaaliya garab taagneed iyadoo aan marna ka leexan mas'uuliyaddeeda deris ahaaneed iyo mas'uuliyaddeeda caalamiga ah intaba waxa uu sheegay in ay ereyo aad u culus arrintan maaragtay ay u soo jeedinayaan oo markaasi ay tahay wax laga xumaadaba in dawladda Soomaaliya ay ku dhaqaaqdo waxyaabo wiiqaya xiriir soo jiray ama soo shaqaynayay iyo walaaltinimo muddo nus qarni ah marka waxa uu sheegay in ay tahay arrintaasi mid ay Kenya si adag uga jawaabayso marka Mawlido 2 maalmood ka hor dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay bixisay laysino ama fasaxyo shidaal iyo gaas iyo looga baaro dhulka Kenya iyo Soomaaliya ay ku muransan yihiin dhinaca xuduudda ah warbaahinta Kenya ayaa sidoo kale iyaguna arrintan ka hadlay waxaana ay sheegeen inta mas'uuliyiinta Kenya ee arrintan ka hadashay arrintan inay tahay daandaansi iyo xadgudub iyo weerar ay Soomaaliya Kenya ku soo qaaday isla markaana ay noqonayso mid ay ka jawaabayaan oo si adag uga jawaabayaan waliba waaya Axmed marka laga tago hadalkaasi Kenya ka soo yeeray ilaa hadda ma hayna Soomaaliya jawaab arrintan ay ka bixisay wax rasmi ah anigu haddaan meel walba eegay ilaa hadda wax rasmi ah oo dawladda ka soo baxay Soomaaliya ma arkin waxaa laga yaabaa in arrintu ay ku culus tahay oo ilaa hadda ay ka fikirayaan wixii ay ka dhihi lahaayeen
iyo in maaragtay aanay intooda ugu sarayso weli gaarinba wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya aan isku daynay ayaguna waa inoo suurtageli weyday waayahay Axmed aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddaba arrintan Kenya ay ka soo yeertay ama go'aanka ay ku dhawaaqday muxuu ka dhigan yahay xilligan maxaase uu sababi karaa waxaa si toosa ayn ula hadlaynaa ambassador Ciid Bedel Maxamed oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika qadka Skype-ka ee magaalada Dooxa ee waddanka Qatar ayuu ku jira ambassador Ciid aad iyo aad baad u mahadsan tahay kuna soo dhawo barnaamijkeena tooska ah waad maqlaysay Kenya hadalkeeda bal maxaa ku baxay arrintan marka hore dad qiimeyn ku samayso mawlido horta waa mahadsan tahay arrintan waxay ifinaysaa laba waxood oo aad muhiim u ah mid waa mid sharci ah oo waa legal midna waa mid diblomaasiyadeed mid sharci ah waxa weeye Kenya waxay leedahay warsaxaafadeedkeeda qodobka ugu muhiimsan waa qodobka 9aad Soomaaliya shirki London waxay geysay maab qaldan oo dhulka yagii badda ah oo shidaal ku bixinayso maabkaasna waa maab qaldan oo waa territoriyadii dhulka yagii badda weeye sharci darro weeye ma aqbali karno sida awgeedna waxaan isticmaalnay diblomaasiyiin iyo journalist safiirkoodii Soomaaliya u sheegnay wuxuu noo xaqiijiyay inuu dawladda meesha ugu sareeyay gaarsiiyay safiirkayagii kale ee Soomaaliya u fadhiyay Kenya la hadalnay message-ka uu gaaray jawaab waan ka weynay jidkii kale noo banaanaado wuxuu noqday in aan marka talaabadan qaadno waana meel ku dhac marka arrintaas waa qodob mid diblomaasiyadeedna waa jirtaa jidka ay Kenya qaaday ee safiirkoodiina ay ugu yeertay kaayagiina ay ku noqoto u yeertay ku tiri xamar ku aadna waa arrin meesha fadhida isku soo duubo arrintu waxay salkeedu ku fadhidaa mid sharci iyo mid diblomaasiyadeed marka Kenya xal kale ma sameyn kartay intaan talaabadan aysan qaadin inkastoo aad sheegtay in ay jireen waxyaalo badan oo ka sii horeeyay laakiin go'aankani waa go'aan aad u culus marka la fiirsho marka ma jirtay xal kale oo ay ka qafiifsan oo qaadi lahayd wallahi Kenya way qaadi kartay labada wax marka haddaan dib ugu sii noqono ka legal sharciyan Kenya way ku saxsanaan kartaa Soomaaliya Kenya ayaa ceelal shidaal oo badda bixisay way ka dacwootay maxkamadda caalamiga ay tagtay waxay tiri Kenya waxay ku soo xadgudubtay badeeni waxayna qaadatay dhulkeeni waxayna ka baaraysaa shidaal maxkamaddii waa dhageysatay Soomaaliya ku guuleysatay dacwadii waa socotaa waa dacwad hadda caalami ah oo sharci ku salaysan haddaba haddii Soomaaliya blockiskii ay geysay London ay yihiin blockiskaas sharciyan dhinaca Kenya ku saxsan Kenya qalad weyn oo diblomaasiyadeed way gashay Soomaaliya xiriir weyn oo istaraatiiji ka dhaxeeya ciidan diblomaasiyadeed ciidan xoogii ciidankoodii baa Soomaaliya la geeyay oo peacekeeping la geeyay inay ilaa heerka geediso luqadaas adagna isticmaasho safiirkoodina u yeerato safiirkeeniina ay tirada baxa taasna waa qalad diblomaasiyadeed jidka saxda ah waxay ahayd in ay u dirto wafdi culus oo wasiirkooda arrimaha dibadda xamar ah dawladda Soomaaliya la fariisato la isku dayo in la qanciyo war saxaafadeed kooban ay soo saarto oo tirada arrintaas Soomaaliya waa isku afgaran la'nahay shuruucda caalamiga ku kala baxaynaa janal diblomaasiyadeed oo degan oo qabow inay isticmaashay ahayd laakiin aggressive iyo isla weyni iyo ku takrifal xagga diblomaasiyadeed baa xagga waayahay ambassador Ciid marka taa laga tago Kenya waxay leedahay Soomaaliya waxay geysay Nairobi xaraash ay xaraashiso ceelal shidaal waxayna geysay magaalada tan London waddankani Ingiriiska laakiin dawladda Soomaaliya waxayna ka warhaynaa halkan aynu ka wareysanay wasiirka petroolka Soomaaliya uu leeyahay ma jirto petrol iyo ceelal iyo wax aynu xaraashino Soomaaliya marka soo lama oran karo marka Kenya waxay dawladda Soomaaliya sheegayso wax ka doonbay Kenya sheegaysa wallahi de waa arrinta la rabo in la xaqiijiyo war saxaafadeedka qodobkiisa 9aad baa ugu muhiimsan waxa kale waa sheeko qodobka 9aad waxay leeyahay Soomaaliya London waxay geysay maab shidaalka qodis ah xuduudaha yagii badda ayuuna maabka dhigayaa maabkaas iyo territoriga annaga iskale Soomaaliyana si sharci darre u ay u xaraashaysa haddaba Soomaaliya laga fadhiyaa inay cadayso warkaas inuu mid sax yahay inuu mid qaldan yahay waayahay ugu dambeyntii ambassador Ciid Soomaaliya marka maxaa u yaala oo ay tahay inay qaado ma talaabo la mid ah midda Kenya qaadaysa mise waxay doonaysaa inay mid ka qafiifsan ay samayso oo xal masuuliyadda lagu dhameeyo maxay noqon doontaa jawaabta Soomaaliya deeno saadaalino wallahi dawladda Soomaaliya inay deganaansho muujiso jidkan ay ku xaliso jid diblomaasiyadeed sida ay Kenya samaysay si ka duwan waa inay samaysaa madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha waa inuu sida ugu dhaqsaha badan tagaa dalka Kenya wada hadal la galaa dawladda Kenya u cadeeya
haddii uu yahay shidaalka la isku haysto kii badda ee Kenya aan ku muransanay maxkamadda caalamiga taale Kenya way ku saxsan tahay arrinta in dib loo dhigo waa intay maxkamadda caalamiga go'aan gaarayso looma baana hadda in qori isku dur la sameeyo oo Kenya jawaabta kulul ay bixisay jawaab kulul la siiyo waa in wafdi heer sare loo diraa u tagaa caasimadda Kenya wada hadal dhab lagala galaa Kenya la dejiyaa laakiin Kenya waa inaan loo dul qaadan iyadana ku tagrifalka iyo sagashada dhulka Soomaaliyeed ee aggressiveness ka sidaas si ka duwan waa in loo dejiyaa arrintaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay Ambassador Ciid Badal Maxamed oo khadka Skype-ka si toos ah ugu jiray wadankaasi Qatar magaalada Doha iyo kaasi aha haddaba dhageystayaasha BBC-da qaarkood ayaa ra'yigoodii ka soo dhiibtay qodobkan gaar ahaan kuwa sida tooska haatan Facebook ay nooga dhageysanaya Sakariya Fooxali oo jooga magaalada Burco wuxuu leeyahay waa mid lagu degdegay go'aanka Kenya ku dhawaaqday ee ay safiirada ku kala qaadanayaan Soomaaliya hase yeeshee Soomaaliya waxa la gudboon inay ka fiirsato falcelinta ay ka bixinayso arrintaasi ficilka ama hadalka ah Cabdirashiid Maxamed Cumar wuxuu leeyahay oo booramo ka soo qoray runtii waan bogaadinayaa wiil hadalka ka soo yeeray dawladda Kenya inay kala qaadanayaan safaaradaha Soomaaliya iyo Kenya waxaan ila tahay buu inay tahay talaabo geesinimo leh oo ay shaacisay dawladda Kenya waxaana filayaa in ay galay laba nin ka wada qoslin gartino ay laba dhinac markaasi dhinac u dhici doonto